maanta oo taariikhda 13 bishii afraad 2022 ay tahay shaqaaqa yar oo shoobara ah baa waxay ka dhacday bologa koo ee xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa oo ay ku jiraan dad ugu dhow 150 qof waxayna shaqaaqadaasi ka dhacday isku afgaran waayeen hal nin oo maxbuus ah oo u tiranayeen edeb darro in loo soo geliyo in kale ka bacdi qaar baa ka faa'iideystay buuqi dhaxiisa oo askartii dhagax ku tuurtuuray askartu way karaysay inay ninkii dhagax qaataba iska celiso laakiin ma ay samaynin sidii ugu wanaagsanayd ee nin askariya oo Somaliland oo haya maxbuus ay walaala yihiin oo dambi u xiran oo u ilaalinayay way u geliyeen jeelkii uu ku jiray qolkii uu ku jiray imikana qol walba ninkii ku jiray baa ku jira wax dhibaato oo kale oo dhacay ma jiraan nin askarta dhaawacantay waa dhowr nin dhagax ay qaateen ay ka goosteen sibidhka meesha ay ku dhufteen baa wax gaarsiisay askartaas hase yeeshee askartu way karayeen in xabas ku dhufsaan qofkii dhagax ku dhuftay ma ay yeelin waan ku bogaadinaya way ku talagal qof qura oo maxbuusa oo gacani gaadhay ma jirto askartiina laba nin mooyaane dhaawac gaadhay yar laakiin intii kalena markii baa la soo daayay kuwa kalena in hadda ka imanaya isbitaalka ayaan ku rajo weynahay dadka buunbuuninayay ee ka sheekaynayay in ay wax dhaceen askar qoryo laga boobay waxaanu sheegaynaa moral xumada beenbeenta ee askarteeda laga sheegay dacwaanu ka qabnaa in askari loogu talagalay inuu maxaabiista iyo layra qorigii baa nin maxbuus ka qaatay oo ku faltamay waa waxaanu rabno in sharcigu wixii uu leeyahay la naga mariyo kana yeeli mayno cidna haddana xabsiga magaalada Hargeysa wuu degan yahay wax dhiba oo ka taaganna ma jiro waxa kaloo jira dadku inta badan waxay sheegayeen oo la saddex mariyo kale inay baxsadeen maxaabiis arintaasi iyada xaq jira taaba soo gaarnay albaabka weyn meeshii ay ku tukanayeen maxaabiistu waa dad islaama waxa loo soo saaraa meel banaan ay ku tukadaan waa la soomeeyay banaankii ay ku tukanayeen ee qolalkoodii way ka soo baxeen mooyaane gudaha banaankii ay ku wareegaan iyagu oo qol walba u gooniya ayay dhex joogeen wax dibadda u baxsaday iyo wax fakaday midna ma jiraan wax dhaawacina ma jiraan sidoo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland ayaa halkaasi ka hadlay waxaana hadaladiisii kamid ahaa guud ahaan ummadda Somaliland waxaan u sheegaynaa inay tahay nabadgelyo inuu jeelku nabad qabo inay maxaabiistu nabad qabto inay ciidanku nabad qabto waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa ciidamada asluubta taliyaha iyo taliye ku-xigeenka iyo taliyaha xabsiga iyo hogaamada iyo dhammaan ciidanka oo had iyo jeer marka shaqaaqada ay shaqaaqa yar dhacdo si midaysan oo ah gudashadii waajibaadkooda xaq ahaa uga hortaga waxaan kaloo u hambaliyeynayaa dhammaan ciidamada kale ee qaranka ciidanka militariga iyo dhammaan mas'uuliyiinta jaranka ugu sareeyo ciidanka booliska oo iyana si degdega iyo militariga oo dhan oo iyaguna markii shaqaaqadan la maqlay si degdega u soo gurmaday oo ciidankii walaal saaxiibadooda ahaa degdeg markaa ugu yimi guud ahaan waa nabadgelyo weeye ma jiro wax dhimasho ma jiro waxyeello maxaabiista loo geystay ma jiro maxaabiis ciidanka qoryo ka qaaday dhinaca kale wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland ayaa fariin u diray saxaafadda iyo bulshada kala duwan ee Somaliland in aan wararka noocaas oo kale aan sal loo buunbuunin isla markaasna maalinta noocan oo kale ah aan bulshada warar been abuur loo sheegin waxa nasiib darro ah bulshadeena qayb kamid ah hadii la yado waaheen baa gubatay inay dabdamiskii iyo ciidankii gurmadka ahaaba dhalinyarada ka horeeyaan waxa nasiib darro ah hadii la jeelkii wax ka jiraan inay bulshadeeni ciidankii iyo waajibaad gudan lahaa iyo dadkii shaqada lahaa ay ka soo horeeyaan waxa nasiib darro ah in saxaafadeeni iyadoo aan hubanti la gaarin inay markiiba u warina ka baxo waxaan aad uga digaynaa bulshadana ka codsanaynaa waxyeelo waa dhici kartaa waaheeno suuqi ugu weyna baa gubtay caalamku wax weyn baa ka dhaca
in haddii shaqaaqa dhacdo oo ama dhakhtarka dhaawac la keeno oo baabuur dhaco waxaad arkaysaa in dhakhtarkii uu daweyn kara la yahay bukihii loogu talagalay oo ay markiiba bulshadii qaybi ka horeynayso waxaan uga digaynaa inaanay dhakhtarada xeryaha muxuu ahaa arrimaha dhaca baananka haddii wax dhacaan ama iskuullada ay wax ka dhacaan in loo daayo cidda hawshaa wax ka qaban karta dhakhtar baa wax ka qaban kara haddii wax ka dhacaan xero ciidan haddii wax ka dhacaan ciidan baa wax ka qaban kara in laga daayo isdhacyaaca in laga daayo taas ayaan baraarujin lahaa oo ka digaynaa waa ogeydeen habeenkii dhaweyto suuqii ugu weynaa baa gubtay maanta caasimadii somalilan dabdamiskii iyo ciidamadii waxay waayeen meelay maraan bay waayeen waxa kaloo aynu dareen dib u jalaacaynaa jeelasha somalilan yaa ku jira ma arday baa ku jirta ma jaamiciin baa ku jirta yaa ku jira jeelasha somalilan waxa ku jira dadkii bulshadooda dunuubta ka soo galay kii wax soo dilay waa ku jira kii terroriska ka soo galay waa ku jira kii tuuga ahaa waa ku jira kii kufsiga sameeyey waa ku jira maaha dad saxlana kuma jiraan wax waa ka dhici karaan markaa yaan lala yaamin haddii wax ka dhacaan maxaa yeelay dadkii bulshadooda eedda ka soo galay baa ku jira sidaas uu taliyuu sheegay wax dhibaato oo weynina ma jiraan askar muxuu ahaa dhaawacantay oo hawshaasina waxa ay ka dhacday sidaa looga sheegay maxaabiis gudahooda iyagu kala cawday ayay ka dhacday oo qaarkood ay rabshad sameeyeen intii ay ciidanku ka saarayeen ba inay qaar kale ka faa'iideysto rabshad walayaala ayaa ka faa'iideystay intay ciidanku ka saarayeen kuwii rabshada sameynayay sidaa daraaddeed wayna kaa jeelkii joogna dhammaan waa wada nabad qabnaa ciidankiina waa nabad qabnaa shaqadiina sidaasay kusoo gabagabowday bulshadana waxaan mar labaad ugu celinayaa waa in ciidamada amniga iyo qaranka ciidamadeena kala duwan ee waajibaadka weyn inoo xambaarsan ee aynu ku hurudno hadduu booliis yahay hadduu asluub yahay hadduu ciidanka qaranka yahay hadduu ka immigratiinka iyo xuduudaha ilaalinaya hadduu ka dabdamiska yahay hadduu ka badda yahay waxaan codsanaynaa in ciidamadeenna in gacan la siiyo markay shaqaaqa dhacdana cidda hawsha kule loo